maanta waxa sharaf weyn noo ah inaan idin la wadaago furitaanka programka SUDAG ee magaalada Gabiley. Magaalada Gabiley runtii waxay ka mid tahay magaalooyinka kobaca weyn ee dhaqaaluhu ka socdo aad kan u fidasa runtii fiditaanka iyo dadka tirada badan ee magaalada soo degaya waxay keentay caqabado in adeegyadii bulshada aan si hufan aan dhammaantood u gaarin. سأسترادد SUDAG wuxuu wax weyn ka tarayaa kobcinta dhaqaalaha iyo runtii in la gaarsiiyo bulshada adeeg hufan oo ku habboon. Programka SUDAG waa axdi ama go'aan la qaatay oo lagu horumarinayo bulshada adeegyadii la gaarsiinayo iyagoo waliba si cadaalad ah loogu gudbinayo bulshada. Runtii jecelahay inaan u mahadnaqo hay'adda mashruucan fulinaysa Cities Alliance iyo midowga Yurub oo maalgelintiisa leh. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. annagoo wada jirna waxaanu dhisanaa magaalo ka casriyeysan tan maanta aynu joogno. waxaynu kobcinaynaa kaabayaasha dhaqaalaha, waxaynu tayeynaynaa adeegga bulshada gaaraya si aynu u aragno horumar iyo dhaqaale koboc ka ballaaran kan maanta hayno. waxaan ku faraxsanahay bilowga barnaamijka SUDAG ee degmada Gabiley. SUDAG wuxuu diiradda saarayaa horumarinta dhismayaasha waxbarasho iyo caafimaad, in kor loo qaado kaabayaasha bulshada, la casriyeeyo nidaamka qashinka iyo horumarinta iyo ilaalinta deegaanka, iyo in bulshooyinka nugul sida barakacayaasha ay helaan adeegyada ay mudan yihiin. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa midowga Yurub oo maalgelinaya programkan ama barnaamijkan SUDAG iyo hay'adda Cities Alliance oo fulinteeda leh. Gabiley waa magaalo leh himilo weyn, waxaana naga go'aan ka maamul ahaan inaan ka shaqeyno sidii aan u abuuri lahayn mustaqbal ka wanaagsan ka maanta. SUDAG waa qayb ka mid ah safarkaasi. safar ujeedkiisu yahay horumar waara, nidaam cadaalad ku dhisan iyo bulsho midaysan. mahadsanidin.